assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi. barnaamijkeennan diblomaasi ayaa daawadayaal waxa uu noqonayaa midaynu isku barbardhigayno labadii diyaaradood aynu horay muuqaalada kala duwan uga samaynay ee kala ahaa Grumman F-14 Tomcat oo dalka Maraykanku iska leeyahay iyo Mikoyan Mi-30 oo Sofiyeetiga iyo Ruushku lahaayeen. muuqaalkan ayaynu labada diyaaradood isku barbardhigaynaa innagoo xulanayna taynu u aragno labada inay tahay tan sarraysa. ugu horreynba daawadayaal diyaaradahan waxaa kala leh labada dowladood aynu soo sheegnay Maraykanka iyo midowga Sofiyeeti amaba Ruushka. diyaaradda Maraykanku waxay shaqada si rasmi ah u soo gashay 1974 halka diyaaradda Ruushku ay shaqada soo gashay 1972 durbadiina kaalinta koowaad waxaa gashay guushuna raacday diyaaradda Ruushka. diyaaradda Maraykanka ayaa markiiba waxa wada laba duuliye halka diyaaradda Ruushka uu wada hal duuliye oo keliya, waxayna guushu raacday mar kale diyaaraddii Ruushka. dhanka soo saaritaanka diyaaradda Maraykanka F-14 Tomcat waxaa la sameeyey 712 xabadood halka diyaaradda Mi-30 dowladaha Ruushka iyo midowga Sofiyeeti ay farsameeyeen in ka badan 1990, waxayna guushi raacday mar kale diyaaradda Ruushka. dherarka marka ay noqoto diyaaradda Maraykanka dherarkeedu waa mid ka badan 19 mitir halka diyaaradda Ruushka dherarkeedu ka badan yahay 15 mitir, waxaana markii ugu horreysay guusha qaaday diyaaraddii Maraykanka. dherarka garbaha diyaaradda Maraykanka garbaheedu waxay ka dheer yihiin 19 mitir iyo bar halka diyaaradda Ruushka ay yihiin 18 mitir iyo bar. mar kalena waxay guushii raacday diyaaradda Maraykanka. joogga dhulka ay ka sarrayso diyaaradda Maraykanka waa 4 mitir dhibic 9 halka diyaaradda Ruushku ay dhulka ka sarrayso 6.1, waxayna guushii raacday diyaaradda Ruushka. culayska markay faaruqa tahay diyaaradda Maraykanka waa 19,840 kiilo halka diyaaradda Ruushku ay tahay 20,000 oo kiilo, waxayna guushi raacday diyaaradda Ruushka. culayska ugu badan ee la kici karto diyaaradda Maraykanku ayaa waxa uu yahay 33,720 kiilo halka diyaaradda Ruushku ay la kici karto 36,720 kiilo, waxaana guulaysatay diyaaraddii Ruushka. dhanka matoorada ayay diyaaradda Maraykanka ay ku shaqaysaa laba matoor oo noocoodu yahay General Electric F-110 GA400 halka diyaaradda Ruushka ay ku shaqayso laba dhaqaajiye noocooduna yahay Siotomiski R-15B300. labadan matoor iyo kala sarrayntooda ayaa daawade u madax bannaan tahay inaad doorato kan sarreeya. dabcan dadyoogu waxay ku kala qaataan dalalka ay taageersan yihiin iyo kharashaadka matoorada. sida caadada iyo anigu waxaan qaatay matoorka Ruushka maadaama uu yahay mid qiimihiisa la goyn karo dayactirkiisuna uu fudud yahay, iyo tan ugu daran oo ah inaanay dowladda Ruushku ku cunaqabataynayn mar walbana ay kaa iibinayso qalabkeeda. xawaaraha ay saacadiiba jari karaan diyaaradahan ayay diyaaradda Maraykanka jari kartaa 2,485 kilomitir halka diyaaradda Ruushku ay jari karto 3,470, waxaana si cad guusha u qaaday diyaaraddii Ruushka. iyadoo wax shidaal u baahan diyaaradda Maraykanku waxay hawada ku maqnaan kartaa 3,000 kilomitir halka diyaaradda Ruushku ay ku maqnaan karto 2,575 kilomitir, waxaana markan guushii qaaday diyaaradda Maraykanka. inta ay xuli karto cirka ayay diyaaradda Maraykanka xuli kartaa 15,200 mitir halka diyaaradda Ruushka ay xuli karto 24,400 mitir, waxaana guulaysatay diyaaraddii Ruushka. qoryaha ay ku dagaalamaan ayay diyaaradahan iskaga mid ka yihiin. sidoo kale gantaalada ayay dowladu waliba saarsatay gantaaladeedii ugu sarreeyey oo heli kartay. isku soo wada duuba waxaa guulaysatay diyaaradda Ruushka, waxayna ku guulaysatay waxyaabahan soo socda. waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee adduunka la arkay iyadoo afka hore raadaar ku wadata. waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay dhanka isrogrogidda. waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay oo si rasmi ah loogu aqoonsaday inay tahay diyaarad wax carqaladaysa. sidoo kale diyaaradda Maraykanku waa mid shaqadii ka baxday, inkastoo Iiraan sii isticmaasho haddana dowladdii samaysatay mar hore ayay shaqada ka saartay halka diyaaradda Ruushku ay tahay mid shaqaysa. dowladdaasuna ay sheegtay ilaa 2030 inay sii shaqayn doonto. sidoo kale qiimaha diyaaradda ayaa kala duwan. Maraykanku waxay ku doonayeen diyaaraddooda xilliyadii ay ugu fiicnayd 38 milyan, inkastoo la sheego inay gaaraysay ugu dambayn marka lagu daro hubabkeeda in ku dhow 60 milyan halka dowladda Ruushku diyaaraddeeda ay ku doonaysay lacag ka yar 30 milyan oo dollar. sidoo kale cilad bixinta iyo qalabyada dayactirka ah ayaynu ognahay dowladda Ruushku inay ku horreyso.
dowladda ruushka ayaa iyadoo haysta shaqaale mushaharkoodu yaryahay halka maraykanka wax waliba ay qaali ka yihiin. isku soo wada duuba daawadayaal waxaa guulaysatay diyaaradda ruushka ee lagu magacaabo mig 31. waxaanu soo gaarnay xilligii aanu ku weydiin lahayn adiga aragtidaada. qiimeyntayadana ma kula muuqataa mid saxa mise waad nagaga soo horjeedaa? fadlan aragtidaada nagula wadaag qaab kommentiya mahadsanid. sidoo kalena muuqaalkan fadlan inoo laygaray inoona sheergaray.
Shalom.